markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay ayaa laga ceyriyay biyaha badda ee South China Sea kadib markii ay Beijing halkaa u dirtay miigag iyo maraakiib dagaal iyadoo Washington ku eedeysay in fal daandaansi ah ay ka wado halkaas. markabka loo yaqaan USS Barry oo ah maraakiibta xambaarsan gantaalaha lahaw ayaa ku soo xadgudbay biyaha maxalliga ah ee geyiga Beijing meel u dhow jasiiradda lagu muransan yahay ee lagu magacaabo Xish Islands oo sidoo kale loo yaqaano Barais Islands talaadadii sida ay sheegeen ciidamada badda Shiinaha ee loo yaqaan PLA. shilkan wuxuu tusinayaa markii ugu horeysay ee ay ciidamada baddu ay si firfircoon ugu dhawaaqaan in sharci darro lagu soo galay aagaas waa sida ku qoran ama sida lagu qoray wargeyska lagu magacaabo Global Times. Mareykanku wuxuu si halis ah ugu tuntay xeerarka caalamiga ah iyo madax bannaanida geyiga iyo danaha ammaan ee Shiinaha ayuu yiri gaashaanlaha ruugcadaaga ah ee lagu magacaabo Lee Hu-min oo afayeen u ahaa taliska qaybta koonfureed ee ciidamada badda Shiinaha isagoo sheegay inay arrintaani khatar horseedi karto. dowladda Shiinaha ayaa waxay ugu baaqday Mareykanka inay joojiyaan daandaansiga isla markaana haddii ay dagaal u baahan yihiin uu haysto mid ku filan kaas oo ay ula jeedaan cudurkan loo yaqaano cudurkan fayraska daran ah ee ku faafaya guud ahaan caalamka si gooniyana waxa uu faafaya dalka Mareykanka isagoona Mareykanku uu ku eedeeyay Shiinaha inay ka dambeeyeen inuu cudurkaasi ku faafo dalka Mareykanka iyo waliba caalamka waxaana cudurkan gudaha dalka Mareykanka la diiwaan geliyay in ka badan 1 milyan oo ruux